farmaajo oo xariga ka jaraya xarunta xisbiga nabad iyo nolol iyo farmaajo oo diiday la kulanka siyaasiyiinta mucaaradka ee ka soo horjeeda dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya haddaba maxaa ka soconaya xarunta Mirinaayo iyo hoyga madaxweyne farmaajo laga dejiyay degmada Kaaraan waxaan kula wadaagi doonaa dhaqdhaqaaqyada ciidan ee halkaas ka bilowday siyaasiyiinta ku sii qulqulaya xogta iyo macluumaadka arrinta la xiriirta xarika jaridda xarunta xisbiga xogihii ugu dambeeyay ayaan ku soo gudbin doonaa qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya Axmed Madoobe iyo saraakiil ciidan oo Itoobiyaan ah oo kulamo xasaasi ah ku yeeshay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose maxaa ka jira in Axmed Madoobe uu doonayo amniga Jubbaland in uu ku wareejiyo dowladda Itoobiya xogta wararkii ugu dambeeyay ayaa daawan doontaan qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya Garaad Jaamac Garaad Cali oo kulan degdeg ah iskugu yeeray saraakiisha ciidanka beelweynta dhulbahante haddaba maxay tahay kulankan degdega ah maxaa laga shirayaa maxaase ka soconaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya ciidanka militariga Somaliland oo dhaqdhaqaaqyo culus ka bilaabay gobolka Awdal iyo beesha Ciise oo hubkii ugu badnaa ka heshay dowladda Djibouti waxaan ku soo gudbin doonaa macluumaad iyo xogo arrintaasi ku aadan qodobada iyo qodobo kale waxa nagu soo kordha ayaa daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay waxaan ku leenahay nagu soo biir like share muuqaalkan subscribe de boggan si aad uga mid noqoto saaxiibada halkan joogtada uga hela wararka warbixinada iyo macluumaadka mar walba aan halkan kuugu soo gudbinayno waa hagaag qaybaha ugu horeeya ee wararkeena ayaan ku bilaabaynaa geedigeena 100,000 adiga ayaa ka dhimane fadlan subscribe de boggan haddii aad haddana la soo qabsatana waxaan ka codsanaynaa in aad muuqaalkan like gareyso si saaxiibo adiga kula mid u gaaro kala daawadayaal soo dhawaada qaybaha ugu horeeya wararkeena aan ku bilowno farmaajo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho kadib markii hal sano iyo bar kadib uu dalka dib ugu soo noqday isaga oo diyaarad ka soo qaaday dalka Turkiga ay ku soo dejisay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho siyaasiyiin xubno ka tirsan markaasi mucaaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada saraakiil ciidan ayaa soo dhaweynta madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo si rasmi ah uga qayb qaatay hoyga aaga Mirinaayo oo ka degay ee degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa aad loo adkeeyay amnigiisa waxaana halkaasi la wareegay ciidamo si gaar ah uga amar qaadanaya General Indhacadde iyo sidoo kale markaasi Muuse Suudi Yalaxow oo kamid ah ragga xilligan wada qaban qaabada ololaha doorashooyinka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo mar kale doonaya in uu u tartamo xilka madaxweynaha sanadka soo socda ee 2026 oo madaxweynaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku eg yahay bisha May 15keeda wixii ka dambeeyana dalka doorasho uu aadi doono Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo lama xaqiijin waqtiga rasmiga ah ee uu sii joogi doono magaalada caasimadda ah ee Muqdisho laakiin wararka iyo macluumaadka soo kordhaya waxa ay xaqiijinayaan in madaxweyne Farmaajo xilligan uu doonayo in uu xariga ka jaro xarunta xisbigii weynaa ee nabad iyo nolol kaasi oo mar kale la doonayo in xilligan tartan furan oo markaa uga qayb galo magaalada Muqdisho maadaama markaasi xisbiyo ay noqdeen nidaamka doorashooyinka dalka uu aadayo madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo ayaa la sheegay in xisbigiisa uu daafuri doono iyo sidoo kale xarunta xisbiga oo noqon doonta aaga dhinaca Mirinaayada halkaasi oo xilliganba ay ku sugan yihiin saraakiil siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo kulamo xasaasi ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo ka bilaabay magaalada Muqdisho ay markaasi kula jiraan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee u janjeera dhinaca madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ku sugan hotelka Jazeera ayaa la sheegay in ay u gacan haatiyeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo laakiin waxa la tilmaamay in madaxweyne Farmaajo uu ka biyadiiday in gaadiidkii galbinayay ay ku leexdaan hotelka Jazeera ee magaalada Muqdisho laakiin taasi bedelkeeda waxa la geeyay hoyga magaalada Muqdisho uu ka degay ee aaga Mirinaayo halkaasi oo iminka uu ka karkarinayo siyaasadiisa la xiriirta ololaha dhinaca doorashooyinka waxaana muuqanaysa xilligan in madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo mar kale uu doonayo in uu u tartamo doorashada 2026 ka dhacaysa dalkan taasi oo xilligan murankii ugu xooganaa uu ka taagan yahay
saraakiil ciidan oo uu qayb ka yahay genaraal indha cadde sidoo kale xasan jaamici ninka lagu magacaabo iyo saraakiil kale oo qayb ay ka yihiin genaraal odawaay yuusuf raage iyo sidoo kale markaasi cumar maxamed cumar filish siyaasigii hore ee gudoomiyaha gobolka banaadir soo noqday isla markaana qayb ka ah hogaamiye kooxeedyadii dalka soo maray iyo sidoo kale markaasi muuse suudi yalaxow oo isna ah ragga xilliganba martigelinta madaxweyne farmaajo sida weyn uga qayb qaadanaya ayaa la sheegay in kulan albaabada ay u xiran yihiin ay ku qaateen hoyga mirinaayo looga diyaariyey madaxweyne farmaajo oo maalmihii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqiisa uu soconayay xogta iyo macluumaadka la xaqiijiyey ee la helayo ayaa tilmaamaya in dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay doonaysay in madaxweyne farmaajo ay ka hor istaagto in markaasi dalka uu dib ugu soo laabto laakiin waxaa la tilmaamay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xisbigiisaba looga yeeray xarunta markaasi la yidhaahdo xaydaabka xerada xalane ee markaa ay ku sugan yihiin xubnaha beesha caalamka ee beesha lixaad loo yaqaano kuwaasi oo dhaqdhaqaaqyo markaa ka bilaabay gudaha xerada xalane oo ku aadan dhinaca doorashooyinka waxaa la sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale tiimkiisa lagala hadlay arrinta la xiriirta muwaadiniinta soomaaliyeed ee dalka dib ugu soo laabanaya ee madaxdii hore ah kuwaasi oo doonaya in ay dalka uga qayb galaan tartanka furan ee dhinaca doorashooyinka ah arrintaasi oo markaa ay isku dayeyso dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud markaasi in ay hor istaagto waxaa la sheegay in safarkan ka horreeyey ee madaxweyne farmaajo uu ku imaan rabay magaalada muqdisho in arintaasi ay khasabtay in markaa ay baajiso ama is-hor istaag ay ku samaysay dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya nidaamkii la doonayey in madaxweyne farmaajo lagu soo dhoweeyo laakiin ugu dambeyntii waxaa la tilmaamay in madaxweyne farmaajo uu markaasi maanta goostay in uu dalka yimaado iyadoo xisbigii nabad iyo nololna markaasi xarigga laga jari doono siyaasiyiinta waxaa la sheegay ee tegey guriga farmaajo waxaa qayb ka ah mahdi maxamed guuleed khadar ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dalka oo isna qayb ka ahaa raggii maanta markaasi tegey hoyga madaxweyne farmaajo qaybna ka ahaa soo dhoweynta madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo haddaba wuxuu ku soo kordha xisbigan cusub ee markaasi madaxweyne farmaajo waa xisbigii nabadda iyo nolol ee xaruntiisa cusub laga xarag jarayo magaalada muqdisho iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada la xiriira shirarka uu la qaadanayo madaxweyne farmaajo siyaasiyiinta wax walba oo ku soo kordha halkan ayaad ka daawan doontaan haddii allah ugu dilo uu raalli ka noqdo laakiin muuqaalkan like saar sidoo kale la sii wadaag saaxiibada markaasi adiga kulamidka ah si ay markaa uga qayb qaataan in markaasi madaxweyne farmaajo dalkan lagu soo dhoweeyo haddaba aragtidaada qaybaha hoose commentiga nagula wadaag sidaad u aragto madaxweyne farmaajo imaatinkiisa iyo sidoo kale waxa uu ka bedeli karo markaasi arrinta la xiriirta dhinaca guuxa siyaasadeed ee nidaamka doorashada dalka waa hagaag weli wararkeena ayaa daawanaysaan markana axmed maxamed islaam axmed madoobe hogaamiyaha maamulka jubbaland iyo saraakiil ka tirsan ciidanka etoobiya ayaa kulamo xasaasi ah saacadihii lasoo dhaafay waxa ay ku yeesheen magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose axmed madoobe oo ay fashilmeen wadahadaladii uu doonayey in uu la galo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya lana rabay mar kale in kismaayo ama nairobi markaasi ay ka dhacaan wadahadaladaasi ayaa gebi ahaanba xilligan u muuqda in ay fashilmeen intaa kadib axmed madoobe waxaa la sheegay in xilligan uu wado dhaqdhaqaaqyadii ugu cuslaa oo uu ku doonayo in markaasi mar kale uu dib markaa boorka uga jafo dagaaladii iyo sidoo kale markaasi colaadihii ka taagnaa deegaanada iyo degmooyinka gobolka gado ciidanka etoobiya saraakiil ka mid ah ayaa la sheegay in axmed madoobe kulamo kala duwan uu la qaatay arrintaasi oo xilligan muujinaysa in markaasi ay miradhali waayeen wadahadaladii la doonayay in ay wada yeeshaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale hogaamiyaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe kaasi oo 13 sano wax ka badan maamulaya deegaanada maamulka jubbaland khilaafka u dhaxeeya dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya iyo axmed madoobe ayaa marba marka ka dambeeya cirka isku sii shareerayay waxa uuna khilaafkaasi noqday mid markaasi xargaha goostay oo dabcan dad badan ay siyaabo kala duwan uga falceliyeen saraakiisha ciidanka etoobiya oo uu kala hadlay ama uu kula shiray magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa la sheegay in uu kala hadlay arrinta la xiriirta deegaanada maamulka jubbaland iyo sida ciidanka etoobiya ay uga qayb qaadan karaan sugidda amniga deegaanadaasi iyo dagaalka ka dhanka ah ciidanka dowladda federaalka soomaaliya ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolka gado kuwaasi oo dhaqdhaqaaqyadii ugu cuslaa xilligan halkaasi ka wada mar haddii ay fashilmeen wadahadaladii u dhexeeyay
dhexeeya Axmed Madoobe iyo sidoo kale dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya gobolka Gado waxa kaliya ee laga filan karo sida ay qabaan dadka u darasa arrimaha siyaasadda Soomaaliya waxa ay tahay in mar kale dagaal culus laga cabsi qabi karo in gobolkaasi uu ka qarxo haddii xal waare laga gaari waayo khilaafka dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Jubbaland ka dhaxeeya ee muddada dheer soo jiitamaya kaasi oo dhowr jeer oo hore la isku dayay in la xaliyo madaxweyne xasan sheekh maxamuudna uu ka degay magaalada Kismaayo laakiin xal waare laga gaari waayay wada hadalladiina ay noqdeen kuwa markaasi ku soo idlaaday markaasi mid miro dhali waayay haddaba wixii ku soo kordha wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan laakiin aragtidaada qaybaha hoose ee commentiga nagula wadaag maxaa keeni kara xilligan in Axmed Madoobe saraakiil Ethiopian ah uu la shiro aragtidaada qaybaha commentiga nagula wadaag waa hagaag wali wararkeena ayaad daawanaysaan maalin wanaagsan ayaan idin leenahay meel walba aad joogtaan markana garaad jaamac garaad cali garaadka guud ee beelweynta dhulbahante iyo saraakiil ciidan ayaa la soo warinayaa in kulamo degdeg ah maanta ay ku leeyihiin magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyadoo magaalada Laascaanoodna looga dhawaaqay dagaal culus oo ka dhan ah ciidanka Somaliland waqooyi bari ayaa markan u jahaysanaysa in ay qaado weeraradii ka dhanka ah ciidanka Somaliland ee ku sugan deegaanada iyo degmooyinka dhaca gobolka Sool waxaana soconaya dhaqdhaqaaqyadii ugu xooganaa garaad jaamac garaad cali aarsade iyo sidoo kale markaasi taliya Cabdi Madoobe iyo saraakiil kale oo ciidan oo aad u fara badan ayaa la sheegay oo beelweynta dhulbahante ka soo jeeda in hadda kulamo degdeg ah ay ku leeyihiin magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kulamadan dhammaantood waxa ay yihiin kuwa markaasi looga arinsanayo xaalka guud ee deegaanada ee gobolka markaasi ama maamulka waqooyi bari waxaana garaadku uu sheegay in ciidanka looga baahan yahay inay xaqiijiyaan amniga sidoo kalena ay ka hortagaan wax walba oo markaasi lid ku ah deegaanada maamulka waqooyi bari gaar ahaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool garaadka mudooyinka ugu dambeeyay safetysa gasho ay ka baxsaneed waxa uu markaasi la tacaalayay si weyn uga soo horjeeday arinta la xiriirta dhinaca maxaabiista siideyntooda taasi oo walaaci ugu xooganaa xilligan maamulka waqooyi bari ay ka muujinayeen sida xogta iyo macluumaadka la helayo ay markaasi xaqiijinayaan iyadoo xaaladda magaalada Laascaanood ay tahay mid markaasi marba marka ka dambaysa la daalaadhacaysa arrimaha la xiriira dhinaca siideynta maxaabiista iyo sidoo kale markaasi dadaalada dagaalka ka dhanka ah ciidanka Somaliland ayaa haddana waxa soconaya oo isdaba joog noqday mudooyinka ugu dambeeyay kulamada xasaasiga ah ee ka dhacaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ee looga arinsanayo markaasi xaaladda deegaanada maamulkaasi iyo dagaalka ka dhanka ah garaad jaamac garaad cali waxa la sheegay in uu amar ku bixiyay in aysan jiri karin cid siideyn karto maxaabiista sidoo kalena ciidanku heegan balaaran ay galaan lana qaado gulufka colaadeed ee ka dhanka ah ciidanka maamulka Somaliland ee xirada oo ku sugan iyo sidoo kale qabashada magaalada Cergaabo ee gobolka Sanaag wixii ku soo kordho wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan hadii Allah ugu dal uraale ka noqdo ugu dambeyntiina ciidanka militariga Somaliland ayaa waxa ay markaasi dhaqdhaqaaqyo ciidan ka bilaabeen gobolka Awdal halkaasi oo mudooyinkii dambe isku hayeen maleeshiyaadka beelaha Samaroon iyo sidoo kale Ciise ciidanka militariga Somaliland ayaa la sheegay in ay la safteen ciidamada beelweynta Samaroon kuwaasi oo xilliganba dhaqdhaqaaqyadii ugu cuslaa ka wada halkaasi laakiin xogta iyo macluumaadka la helay waxa ay tilmaamayaan in saraakiisha ciidanka beesha Ciise ay heleen hub iyo gaadiid aad u fara badan oo la rumaysan yahay in uu ka yimid dhinaca dalka Djibouti iyadoo gaadiid markaasi aad u fara badan oo markaa hub uu ku raran yahayna la sheegay in la soo gaarsiiyay magaalada Saylac ee gobolka Awdal xogaha iyo macluumaadka la helayo ee gobolka Awdal ka imaanaya waxa ay tilmaamayaan in xaalad halis ah ay ka jirto magaalada Saylac lagana cabsi qabi karo in mar walba dagaal uu ka qarxi karo magaaladaasi sida ay markaa ay shaaca ka qaadeen saraakiisha labada dhinac ee markaa ciidanka halkaasi ku dagaalamaya ee maleeshiya beeleedka ah iyadoo ciidanka Somaliland ay amar ku bixiyeen in magaalada wax huba aan lagu dhaxwada karin dhaqdhaqaaqna aan laga fulin karin iyadoo beesha Ciise xubno ka tirsanna ay tilmaameen in xilligan caburin ay saarayso Somaliland dhinaca qabiilka beesha la yiraahdo Ciise ee halkaasi qaybta ka ah ama wax ka dega magaalada Saylac ee gobolka Awdal maalmihii ugu dambeeyay waxa ka soconaya dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda inkastoo wax dagaal uusan ka dhicin laakiin cabsi xoogan ayay xilligan sheegeen dadku in ay muujinayaan lagana cabsi qabi karo in dagaal halkaasi uu ka qarxo wixii ku soo kordho wararkeena iyo warbixinadeena soo socda ayaad ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay waxaan ku leenahay nagu soo biir like saar muuqaalkan subscribe bogan si aad uga mid noqoto saaxiibada halkan joogtada uga hela wararka warbixinada iyo macluumaadka mar walba aan halkan ku soo gudbinayno